dood cilmiyeed looga hadlayay faa'iidooyinka iyo khasaaraha geedka caligaroobka ama geed yuhuudka oo sidoo kale Soomaalida qaar ay u yaqaaniin garanwaaga ayaa lagu qabtay xarunta Jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Kulliyadda Beeraha ee Jaamacadda Banaadir ayaa soo qabanqaabisay dood cilmiyeedkan oo ahaa mid aad u xiiso badan, waxaana ka qayb qaatay aqoon-yahano ka dhiga jaamacadaha dalka qaarkood iyo khubaro ku takhasusay arrimaha beeraha iyo deegaanka oo ka howlgala hay'ado maxalli ah iyo kuwa caalami ah oo muddo dheer kasoo shaqeynaya mashaariicda dhinaca beeraha ee dalka laga fuliyey. Waxaa dood cilmiyeedkan si weyn loogu faaqiday taariikhda geedkan, xilliga lasoo geliyey Soomaaliya, faa'iidooyinkiisa, hababka ugu habboon ee looga faa'iideysan karo iyo sida looga gaashaman karo dhibaatooyinka uu wato. Qaar ka mid ah khubarada ka qayb qaatay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in geedka caligaroobka magaciisa rasmiga uu yahay Propolis juliflora, halkii ugu horreysay caalamka lagu arkay ay ahayd koonfurta qaaradda Ameerika 100 sano ka hor. Waxayna intaa ku dareen in geedkan uu yahay mid adkaysi badan oo ku baxa cimilo walba, inkastoo uu aad ugu fiican yahay dhulka kulaylaha ah. Daraasadda la sameeyey ayaa lagu sheegay sida khubaradu ay sheegeen in geedkan xididadiisa ay dhulka hoos u galaan 30 ilaa 30 mitir si uu u helo biyo iyo macaadinta ku filan, taasoo sababtay in uu adkaysi u yeesho abaaraha iyo roob la'aanta. Khubarada ayaa intaa ku daray in geedkan uu ku fiday meelo badan oo caalamka ka tirsan, haba ugu badnaatee dalalka India iyo Australia. Markii ugu horreysay ee sanadkii 1950kii uu Soomaaliya keenay nin Ingiriis oo la oran jiray Dawson, kaas oo ku beeray deegaanka Buloxaar oo magaalada Berbera ku dhow, iyadoo sanadkii 1980kii ay koonfurta Soomaaliya keentay hay'adda FAO si ay uga faa'iideystaan qaxootigii ka dhashay dagaaladii Itoobiya iyo Soomaaliya u dhexeeyay 1977, iyadoo sidoo kalena loo adeegsaday bacad celintii dowladdii kacaanku ka sameysay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Geedkan faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin ayuu leeyahay. Dhaqso ayuu u baxaa, mar walba waa cagaar, xoolaha mirihiisa cuna way ka caano iyo hilib badan yihiin kuwa kale, xitaa isagoo oo qoyan dhuxul ayaa laga shidan karaa. Tiirar wax lagu dhisto ayaa laga sameeyaa, waxaa loo adeegsadaa bacad celinta iyo difaaca deegaanka, wuxuuna kor tagaa nabaad guurka, ayuu yiri Professor Maxamed Cali Sheekh Cabdi oo hormuudka Kulliyadda Beeraha ee Jaamacadda Banaadir oo ka mid ahaa khubaradii dooda ka qayb qaadatay. Waxaa sidoo kale dood cilmiyeedka lagu soo bandhigay dhibaatooyinka geedka caligaroobka oo ay ka mid yihiin caleentiisa oo xoolaha badanaa aysan jeclayn inuu qabsado dhulka beereedka iyo dhulalka la degan yahay, dhaawacay qodaxdiisu dadka iyo xoolaha u geysto, iyadoo ay aad u adkaato in laga ciribtiro dhulka uu ka baxo. Waxaa sidoo kale la sheegay magacyo kala duwan oo deegaanka Soomaalida looga yaqaano geedkan sida caligaroob, geed yuhuud, garanwaa, kaligi noole iyo kuwo kale, waxaana khubaradu waxba kama jiraan ku tilmaameen fakar qaldan oo keenay in Soomaalidu qaarkood ay geedkan ula baxaan geed yuhuud, iyagoo xusay in geedkan uusan ahayn kii uu nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sheegay inuu qarinayo yuhuudda marka ay la dagaalamayaan muslimiinta xilliga aakhiru zamaanka ama dhammaadka dunida. Gabagabadii waxaa la soo jeediyey qodobo iyo talooyin ku saabsan sidii dhibaatooyinka uu geysto loo yareyn lahaa, dhinaca kalena sare loogu qaadi lahaa ka faa'iideysiga iyadoo la dhowrayo deegaanka. Gudoomiyaha Jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ka hadlayay munaasabadda ayaa bogaadiyey ka qaybgalayaasha dood cilmiyeedkan oo uu sheegay inay si sharaxaad leh oo aan horey loo arag uga hadleen geedka caligaroobka. Inkastoo geedka uu dhibaatooyin geysto, haddana faa'iidooyinkiisa ayaa ka badan sida ay inoo sheegeen khubaradii ka qayb qaadatay dood cilmiyeedka. Sidaan ognahay, Soomaalidu geedkan waxay ka aaminsan yihiin fakar qaldan oo ah in dhibaato mooye uusan faa'iido lahayn, taasna waxaa sabab u ah aqoon darrida ka haysata si ay uga faa'iideystaan. Wacyigelin badan ayaa loo baahan yahay, ayuu yiri Dr. Dalmar oo u mahad celiyey ka qaybgalayaashii doodan iyo Kulliyadda Beeraha oo soo qabanqaabisay. Senator Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ahaa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo isna munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu riyaaqay sida cilmiyeysan ee khubaradu sharaxaadda uga bixiyeen geedka caligaroobka ama garanwaaga iyo waxtarkiisa, isagoo soo jeediyey in nuxurka dood cilmiyeedkan laga sameeyo buug lana gaarsiiyo bulshada si ay uga faa'iideystaan. Gabagabadii kulankaas waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Maxamuud oo khubarada ka qayb qaadatay dood cilmiyeedkan ku ammaanay sida hufan ay uga hadleen geedka caligaroobka, isagoo dhinaca kale sheegay in wasaaraddiisu ay dejinayso qorshayaal la xiriira sidii looga faa'iideysan lahaa geedkan iyo kuwa la midka ah. Khubarada iyo aqoon-yahanada ka hadlay doodan ayaa waxaa ka mid ahaa
Professor Maxamed Cali Sheekh Cabdi oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee Jaamacadda Banaadir, Dr. Ismaaciil Caanos, Maxamed Mayow Cabdulle, Cabdiqaadir Nuur Haafow, Cabdulaahi Cumar Maxamuud, Injineer Cabdiqaadir Cumar, Maxamed Aadan Geelle, Maxamed Cabdisalaan, Dr. Axmed Cilmi Hurfe, Maxamed Ibraahim iyo dad kale oo fara badan.